بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دروستeennu halkii ka sii wadnaa waxbarashadii islaamka ama aqoontii islaamka waan ku soo jiray qaybtii aqoonta oo sii galay qaybtii arkaanul iimaan sita arkaantii iimaanka ee lixda ahayd saddex baan hore u soo marnay maantana rugniga afraad ee al-iimaan rusul ayaynu dhigaynaa in la rumeeyo rususha to believe in messengers of Allah and rusushu waa jamac rasuul marka rususha in la rumeeyo ambiyadaba ambiyaduna waxa weeye jamac waa nabi bay ka timi marka rasuul iyo nabi maxay kala duwan iyaguna ayaa muhiim ah rususha oo dhan waa nabiyo laakiin nabiyada oo dhan rusul maaha nabiyada qayb kamid ah ayaa rusul laga dhigay oo waxa weeyaan la amray risaaladii dadka gaarsiiyay ladina umiru bitabliiq laakiin nabiyada oo dhan رسول معها مركز سيداس أرجح وساس رسوشا مركز حويان النبي هذا وحي باكسود دقيقة لبده دبا يعني كسود داس كمدي هي من يوض النبيو وحي باكسود دقيقة حاجة رب لوجس ود دريي نبي والبومد قارب لوسو دريي أو حل جاي شوكتا أو طريقي مركز كله حطه المدعي محا هاتاي فترة كتشتو السنة معابدو مركزا سي طريقة صح حاله لو جسوا عليو ربنا الله برو إن كل اللي عابده هيا لو سودري رسول رسول شو حكى صار بالعام أيام نبي الله نوح يا رسول يقول ريا وحنا قدام بي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله لكن حويا نبي هذا بكسر بالعام أيام نبي الله محمد بقى قدام بي marka nabiyada qayb baa rasuul bay niri nabiyada tiradooda 140 baan saxday 25 baa lagu sheegay quraanka magacyadooda intii magacyadooda la sheegay iyo intii tiradooda la sheegay iyo nagu si mujmala inaynu u rumayno ayaa inagu waajiba marka risaaladka loo soo dhiibay waxa la socday iyaguna mucjisaad kale oo dadku hadday rumayn waayaan wax ma garanaysaa ay arki karaano u muuqda oo inay nabi yihiin u cadaynaysaa ayaa loo soo diraya mar rasuul yihiin waxaa ka mid ah mucjisaadkaas ushii nabi muuse oo kale nabi muuse 9 mucjisaad siiyey oo ushaas ka mid tahay waxaa ka mid ah doontii nabi nuux waxaa ka mid ah hashii nabi saalax waxaa ka mid ah kuwii nabi ciise la siiyey waxaa kaloo ka mid ah mucjisaadka nabi maxamed la siiyey iyaguna oo fara badnaa mucjisada ugu weynina waa quraanka ay maanta hayno oo isaga waxay maalin walba mucjisa ka soo baxaysa wixii marba cilmigiisa la helay saynisku helo ayaa la oranayaa oo waxaan quraanka sheegay hore goor iyagoo faahfaahsan ka wanaagsan waliba sida nimka oo mala ku jirtaba marka sayniskii iyo markii la sii maxaa horumar la sii sameeyaba waxa 80% waxyaabihii quraanka markii hore aan lala yaabanaa sayniska u sii marxaati furay 20 kalena 80% la hayo inta kalena wax laga yaabaa bay yiraahdeen in iyaguna mustaqbalka dhow la sii ogaado marka waa mucjis maalin walba taagay quraanku dadku inay bartaan weeyaan macaanihiisa la barto la dhageysto haddii xataa aanad gaadi waxba aqoon lagu dhaqmo dadka la gaarsiiyo ayaa lanaga rabaa rasuulka mid soo baxayo nabi maxamed oo dambeeyay kitaabkana soo degi maayo kitaabka quraanka ayaa lagu soo khatimay oo jiniinsiga loo diray oo ummadahoo dhanba loo soo dejiyey marka halkaas baynu u daynaynaa sii sheergareeya channelkan علوم كلا كجست هجاب قرآن كاه مركب لقوا برا ناس دقة ما يرجودهود قفكو حتى إسكي سوبر كرا أيها كتيرة وحكرا أنا هنا بقى بيدي فيقولون هجاب دي عربي دي وصومالي كتشتبن يغار إنجليشة هذا ضو بعتان نمبر ده واتساب كان جالس صحيح وفري ديستريبيوشن PDF وحول ذكر ودين مايو هالكاس بينو تشوق الساعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.